وتهاي داوديان برنامج كينو وحكوسي سقيا كنتي بنانتكي وحين مدقلي دونا قيبت أفراد برنامجك عبد الرحمن سرق الصورة برباشا عينا كقارة كل الصومالي انتي وغني وقتي برشدة مركا لو واحد دور مهمة كعيارتا ساحة مسرحية تشلي كيسو صارت الرواية طبعا waxaan noo qoran riwaayada dhowr ah maanta loogaan doon Cabdiraxmaan kuwaas lahaa qaar kule xaadir baan ha kuwan wagaraadi kamid yihiin waan ka daba geyn ma ay riwaayada kooban waxa la yiraahdaa Tujuub iyo Jacayl wal wagaraadi ku jiraan iyo Jacayl bal xilliga saxiibada ku kafay inta samaysan riwaayadaas riwaayad mashruuciyada walaalaad ka dhawaajisay dhanka riwaayadaha waa curadayda kowdhe riwaayadan aan u curiyo laakiin dhanka jileenka marka la ilaa xilligii aan hal abuurnimada bilaabay suugaanta curunteeda isku dayay 2017 waxaan halkan aad uga salaamayaa nin dhalinyaro ah oo saaxiib noo leeyahay Cabdisalaan Hayoon leeyahay ayaa riwaayadii ugu horeysay horta jilo laha riwaayadaasi markaa waxa ii furtay inaan riwaayad soo saar karo moogta dhanka riwaayadaha ninka dhalinyarta saaxiibka nahay baan horta halka uga mahad celinaya kadib ana waxaan curiyay markaa riwaayadan leeyahay markaan tii Cabdisalaan jiray oo ka waramaysay dhaqanka iyo noloshii miyiga ka waramaysay ayaan ana curiyay riwaayadan leeyahay waa Tujuub iyo Jacayl marka waxay salka ku haysaa in dad isjecel la soo kala dhaxgala moogta cidda waliba waxaan ka hadlayaa wax soo kala dhaxgalgaanka la soo kala dhaxgalaya wuxuu noqonayaa dhankii dhaqaalaha weeyaan inaan iyo inaan baa ilaa xilligii iskuulkoodii ardaynimadoodii isla soo barbaaray jacayl de soo wada jilayay iyagu de aan hayn kharash maanta ay reer ku dhistaan ayaa waxa looga faa'iideysanayaa baahida wadanka jirta moogta qolyihii abwaan weersamaan ka daba tagaya qolyihii naafada ee xagaa ka soo dhici jiray Yurub oo shandadii wata qolyaha xitaa lama weydiiyay cid yihiin moogta nin xagaa ka yimid baa inaan bu soo doonayaa la oran maayo aniga ku soo doonaya waa ayo qurba joog uu ka yahay moogta ag lacagtu wata moogta siifigiisu waa lacag qolyahaas waxay dhib badan ku hayaan dhalinyartii rag badan oo markaas saaxiibada ay arintaas ku dhacdo jambiga loo furay daymankan oo ka wada warqabna waxa soo degaya hablo lacag sito oo ay de inama hablihiina uu ku dhacay culayski marka jacaylka kala jujuubaya ee dhaqaalaha lagu kala kaxaynay labadii qof ee isjeclaabay ka hadlaysay riwaayada waxa jishay kooxda hidaha iyo dhaqanka halka akademi waxa martigelisay xarunta dhaqanka Hargeysa qofkii doonaya inuu daawado wuxuu ka helayaa page-ka xarunta dhaqanka Hargeysa ayuu dib uga helayaa riwaayada waxaan halkan ka xusayaa laba qaybood bay lahayd qaybta koobaad waxa curinteeda igala qayb qaatay in la yiraahdo abwaan la Cali Xuseen Kaahin abwaan gabax qaybta labaadna waxa igala qayb qaatay abwaan kale la yiraahdo Cali Bashiir Yuusuf marka riwaayadu way ka duwan tahay sida heesta oo riwaayada markaad fikirkeedu qorto waxaad siin kartaa abwaana kamid inay midho ku yeelan karaan marka waxyaabaha riwaayadu ay kaga duwan tahay oo inay ilaa 4 ama 6 tusaale riwaayadii loo oran jiray aqoon iyo afgarad de waxa ka qayb qaatay rag badan oo kamid yihiin Saciid Saalax iyo abwaan gaariye iyo rag badan hadraawi waa qaybo badan kullaha marka riwaayada Tujuub iyo Jacayl arintaas ay daaranay waa tahay hagaaga daawadayaal intaas ayaan kaga nimaadno faafahinta riwaayada Tujuub iyo Jacayl markale iyo riwaayada labaad ee afka hooyo waa hodan kulli taaf Soomaaliga ka samaysan maleynaya Cabdiraxmaan fadhiyadana xilliga aad walaaliyadu waxay ahayd riwaayadani 2021 ahayd ay riwaayadani ahayd afka hooyo waa hodan waxayna ka waramaysaa qiimaha afku leeyahay marka waa maalinta laga xuso dunida sanad walba maalin baa u qoondaysan garanaysaa dunida laga xusaa afafka adduunka marka munaasabadaasaan kaga qayb qaadano xarunta dhaqanka martigelisay isla hal kalba jishay riwaayadana waxa qayb lixaad leeyga qayb qaatay saaxiibkay Cabdulqaadir ninka la dhaha abwaan dadku waxay u garanayaan Xaaji Basar baa loo yaqaanaa ayaa riwaayada iyadana qayb jileenkana ku lahaa midhaheedana qayb gala qaatay taasina saasayda qiimaha afka ka hadlaysay waa tahay riwaayada labaad ee kaga dhimaanay barnaamijkeena afka hooyo waa hodan Cabdiraxmaan waxa jirta riwaayada goob joog bana waa rafaad adduunyadu ruuxaal ku nool yahay weeyaan bal waxyaabay ku kalfayda xilliga qoranto iska cadi laakiin daawadayaasha qaar iyadu waxay ahayd sanadan 2022 ahayd waxaynu de ku soo bandhignay isla xarunta Hargeysa isla waxa jishay halkar oo ah aniga kooxda riwaayadaha iga jisha halkar akademi riwaayadaas waxay ka waramaysaa nolosha dhabta ay ka jirta dunidan waa rafaad adduunyada ruux baxal ku nool yahay waxa laga yaabaa nin baa taajir oo lacag buu haystaa waxa laga yaabaa balse inaanu caafimaad hayno xanuunsanayo waxa laga yaabaa nin baa
inaanu maal hayn waxa laga yaabaa inuu isaga caafimaad haysto macnaha ninkan maxaa la siiyay caafimaad kana waxa la siiyay dhaqaale macnaha noloshana rafaadan mid kasta uu ku dhibaataysan marka waxay ahayd nolosha reereen iyo raran kala dhaxtaale waa rafaada dunyada ruuxba xaal ku nool yahay hal ku dhigeedu ha riwaayadani waxay riwaayadaha kala marka la eego riwaayadahan sameeyay waa tan aan ugu jecelahay maxaa yeelay waxay gudbinaysaa xaaladda dhabta ah ee bulshada saddexda riwaayad waa kuwa baxay ee dadku ugu arkeen kuwa kalena insha Allah daawahay soo saaran yihiin oo ay kamid tahay waa dheeman libintiya dhib yaraan ma helaynaa riwaayadaasi ay inoogu xigi doonto tan hal abuur igala qayb qaatay curinteeda ma jiro balse jiliinka ayay halkan igala qayb qaateen xarunta dhaqanka aad baan u bogaadinayna iyagoo isku duuban oo waa hoyiga